saacadaha yar ee hooyada ee la joogto waliba maalmaha sabtida iyo axad u badan iyo wax afkii Soomaaliga u eg iyo ku hadlo anigana igu dhacday bishii Ramadaanka saddex cunugoon awow ah hadii keenay wana loo kala turjumay ama Ingiriis ma ku wada hadleen ma ana jecleen la joogitaankayga inta badan waxay jeclaayeen qolooyinka ay dibadda iskala yimaadeen kuwa Sweden ka yimaadeen kuwa meelaha ka yimid isla familka aan u geeyaa markaan u geeyo waxaad moodaysaa isu jecel yihiin iyagoo wadamo kala duwan ka yimid isu jecel yihiin si u sheekaysanay malaa'ika dadkaas iyaga maxaa ka soo baxay marka waxaan tirinayaa geeraar yar oo walaalaheena iska soo baxay waqtigaad moodaan ugu cariiri yahay wuxuu yiri ninkan diasporada iyadoo isagoo ka cudur daaranaya leh Africa ay bil walba lacag soo dhiibtay baad heesaan horta waxa aan ku noolahay ma ka war heesaan wuxuu yiri nan stop inaan ahay speedkaygu badan yahay snow aanan socon karin outside ka mooye indoor aanan joogeen ice iyo qabowguna old man u daran yahay Albertina Slibri adimadu ku jabayaan sleepkayga oo idil only 4 hours uu yahay including maalmihi weekendiga la oran jiray income-kaygu low yahay account-kaygu maran yahay always tired aan ahay ima garanti waa gune abuse-na aan qabo school xumo daraadeed labor aan ag taagnahay education-kaygi already finish yahay ignorant jahila equal aanu simannahay amuurtaydu say tahay upside down u rogan tahay age-kaygu weyn yahay school aanan dhigan karin Africa oraahda I need money hadduu yahay every month biilkii yaad sugaysaan you know exactly the information kegi if you know aware that again by you know die gerarki naga soo baxay diaspora kaas waaye